maalin waliba waxaa siyaada magaalooyin kale dabaqyada dhaadheer ee daruuraha hertiya dadkuna caadi ahaan waxa ay jecel yihiin dhismayaasha dhaadheer ee ka fog dhulka kuwaasi oo leh qolal badan oo aan laga heli karayn dhulka dushiisa bal malayso adiga oo dhulka qayb yar ku leh haddana qaybtaasi yar lagula leeyahay oo dadkula degan yihiin haddaba muuqaalkan ugama sheekaynayno dhismayaashaasi dhirirka badan iyo dabaqyada cirka jira ee casriga ah balse waxaan ku laabanaynaa taariikhyadii hore si aan u ogaano tusaalooyinka magaalooyin dhulka hoostiisa lagu doogay kuwaasi oo huwan cabsi badan iyo wareer ka taagan micnaha magaalooyinkaasi balse intaanan u gelin barnaamijka fadlan like saar videogan si ay dhiirigelin inoogu noqoto magaalada Drinkoyo ee waddanka Turkiga waxaa jira wax ku dhow 50 magaalo oo dhulka hoostiisa ah waddanka Turkiga waxaana lagu tiriyaa magaalada Drinkoyo midda ugu caansan dhammaantood magaalada ayaa daboolaysa masaaxo leeg 4 kiiloomitir waxayna dhulka hoos u jirtaa wax leeg 55 mitir waxayna aaminsan yihiin baarayaashu in magaaladu ka kooban tahay 20 guri balse ilaa hadda 8 guri oo kaliya ayay heleen iyadoona baarayaashu iyo taariikhyahanadu u malaynayaan in dadka degan magaaladani ay gaarayaan 20,000 oo qof marka lagu daro xayawaanadooda iyo waxyaabaha ay quutaan oo dhan waxaasi oo idil dhulka hoostiisa ayay ku jiraan hadallo badan ayaa laga yiri asalka dadkaas balse midka ay soo saartay wasaaradda thaqaafada ee waddanka Turkiga magaaladan ayaa la aasaasay qarnigii 7aad ama 8aad miilaadiyada ka hor waxaa kaloo la sheegaa in magaaladani la aasaasay intii u dhaxaysay 1900 iyo 1200 ee miilaadiyada ka hor waxaana degi jiray qabiilooyinka Hitris balse weli waa mid qarsoon sababka ka dambeeya in magaaladan laga sameeyo dhulka hoostiisa wax waliba si hagaagsan ayaa dhulka hoostiisa loogu sameeyay laga bilaabo duleeladan hawada u furan ee gaaraya 52 duleel iyadoona duleeladu fiican yihiin oo ay hagaagsan yihiin wax dhibna soo gaarin ilaa iyo maanta xitaa magaaladan markaad joogto darajada iyo mustawaha hawadu waa mid iska caadi ah oo si caadi ah ayaad u neefsan kartaa dhirirka ceelasha ayaa gaaraya 58 mitir iyagoona biyaha ka waraaba dadka oo ka caba xitaa haddii heerkulka kulaylku hoos u dhacay 15 eber ka hoos biyaha way la soo bixi karaan wayna adeegsan karaan magaalada ayaa ka kooban dhammaan noocyada raaxada sida qolalka jiifka qolalka fadhiyada qolalka lagu cibaadeysto qolalka xayawaanaadka u gaarka ah iyo xitaa qabriyo waaweyn magaalada ayaa qaybo badan u kala qaybsaneed sida qaybaha lagu cibaadeysto qaybaha hurdada iyo wixii la xiriira iyo weliba qaybaha laga adeegto sida dukaamada iyo wixii la mida iyadoo ay inta dheer tahay in dadka degan qaybaha 3aad iyo 4aad ay ku mashquulsanaayeen soo saaridda iyo hagaajinta warshadaha balse qaybta ama dabaqa 8aad waxaa ku kulmi jiray dadka magaalada hogaamiya iyo akhyaarta ugu cadcad ee matala qoysaska waxaa shaki ku jirin in dadkaasi dhulka hoostiisa ku noolaayeen muddo dheer balse culimadu waa ku kala tageen qaabka ay halkaasi dadku ugu noolaayeen culimada qaar ayaa ku doodaysa inay bannaanka u soo bixi jireen qaar kale ayaa yidhi waxay degganaayeen tuulo meesha u dhow iyadoona magaaladu ahayd mid ku qarsoon dhulka hoostiisa balse markay khatar dareemaan ayay meesha galeen oo dhiseen si ay ammaan ugu helaan waxaa la sheegayaa in wax ku dhow 600 oo wado ay meesha ku yaalaan kuwaasi oo qaarkood maro meelo qarsoodi ah kuwana ay maraan dhulka caadiga ah waxaa kaloo la sheegaa in noloshu caadi ahayd meesha ilaa qarnigii 8aad iyadoona markaa kadib dadkii deganaa meesha isaga tageen sabab aan la ogeyn darteed iyadoona magaaladu noqotay mid hawanaysa oo qofna uusan ku nooleen muddo badan ilaa si kadis ah looga ogaaday sanadkii 1963 dadka beeralayda ah ma aysan garanin qiimaha iyo taariikhda meeshani oo alaabtooda iyo qudradooda ayay ku keedsan jireen meeshaasi ilaa markii dambe culimadu kala wareegeen oo baaritaano ay ku bilaabeen iyadoona noqotay meel ay u soo dalxiis tagaan dad fara badan oo isaga kala yimaada dhammaan daafaha caalamka labo manjamka Fiyaladshika ee cusbada ah Poland waxaa dhaca meel u dhow tuulada Fiyaladshika ee koonfurta Poland kana tirsan Krakow manjamkii qarnigii 13aad ee laga soo saari jiray cusbada waxaana loo qadariyaa inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu qadiimsan ee laga soo saaro cusbada iyadoona muddo dheer cusbada laga soo saarayay ilaa 2007 dhab ahaantii markaad gudaha meeshan ku jirto waxay u eg tahay boqortooyo balse waa manjam weyn oo laga soo saaro cusbada oo kaliya dad fara badan ayaana u soo dalxiis tagi jiray qarnigii 5aad balse dalxiisayaal toosa ma ahayn ee ogolaansho uu siiyey boqorkii markaas ayay ku soo galeen iyadoona hadafkoodu ahaa inay cusbada ku sameeyaan tijaabooyin cilmi baaris ah
qarnigii 18aad waxaa la sameeyay dhowr buundo si socodka meeshaas u fududaado. qarnigii 19aad dadka dalxiisayaasha ayaa aad u soo batay meesha, walibana dalxiisayaal reer Austria ah ayaa aad meesha ugu soo batay. sanamyo fara badan ayaa ku yaal meeshaas, iyadoona badankood laga sameeyay cusbada. hawshaasina waxaa qabtay dadka ka shaqaynaya manjamka, iyadoona dad hadda jooga oo farshaxano ah ay sawirro kale ku dareen kuwii hore. tirada sanamyaduna ay sii korortay. waxaa manjamka cusbada sanadkiiba soo booqda dad ku dhow 1,200,000 oo qof, isagoona ka mid noqday meelaha loogu dalxiis tagista badan yahay qarnigii 19aad. buugaag badan ayaa laga qoray taariikhda manjamkani, iyadoona asalkiisa iyo rasmi ahaantiisaba laga sheekeeyey. waxaase bilowgii qarnigii 20aad la adkeeyey shuruudaha soo gelidda manjamka, iyadoona loo ogolaaday inay halkii mar soo geli karaan oo keliya 100 qof. meesha ayaa ah mid soo jiidasho badan oo dadku aad uga heleen, iyadoona dalxiisuhu ku wareegi karo 20 qol iyo macbad meesha ku yaala. runtii waa boqortooyo dhammaystiran oo dhulka hoostiisa ku taal, adigoo waddooyinka cajiibka ku socdaali kara, daawana kara dhismayaasha cajiibka ah ee quruxda badan. magaalada Nawres, France waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee dhulka hoostiisa ku yaal dalka Faransiiska. waxay ku taallaa koonfurta magaalo isla magacaas wadata oo dhacda waqooyiga dalka Faransiiska, iyadoona bedkeedu yahay dhowr kiiloomitir. waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan. wax la yaab leh maaha in magaaladan la ogaado oo waqooyiga Faransiiska waxaa horaanba ku badnaa magaalooyinka dhulka hoostiisa ku qarsoon, kuwaasi oo dadkii halkaa deganaa isku qarin jireen kuna qarsan jireen alaabtooda marka weerar lagu soo qaado. warbixinada qaar ayaa sheegay in magaaladani ay deganaayeen 3,000 oo qof. sidoo kale waxaa la sheegay in magaaladan la dhisay intii lagu guda jiray qarnigii 9aad. sidaan horey u sheegnaba, dadka ayaa halkaas dhufays ahaan iyo alaab ku ilaashasho u isticmaali jiray xilliyadii dhexe ee dagaaladu jireen, iyadoona bilooyin badan halkaa isaga jiri jiray oo aan ka soo bixi jirin. magaaladan ayaa uga duwan magaalooyinka dhulka hoostiisa ku yaala nidaam aad u habaysan oo ay u samaysan tahay. marka la joogo daakhilka hoose ee magaalada, qaab duuban ayay u samaysan tahay si aan loo ogaan halka uu qofku isku qarinayo. dadka ayaa cuntadooda gudaha ku karsan jiray, iyadoona dadka bannaanka jooga aysan ogaan ama aysan dareemin. waxaa magaaladan daaha laga qaaday aakhirkii qarnigii 19aad. culimada ayaa ka yaabay qaabka cajiibka ah ee magaaladu u samaysan tahay. ceelalka iyo dhismayaasha kale ayaa ah kuwa soo jiidasho leh. 4. magaalada Karis, Iiraan. koonfurta Iiraan ee khaliijka Faris waxaa ku taal jasiirad yar oo lagu magacaabo Kash. waxaa halkaasi ku yaala meel dalxiisayaashu aad u soo booqdaan, kamana hadlayna xeeb lagu damaashaado, balse waa magaalo kaamil oo dhulka hoostiisa ku taal, looguna yeero magaalada Karis. sida ay warbixinadu sheegayaan, magaaladan ayaa la dhisay muddo laga jooga 2,500 oo sano, waxaana loo adeegsan jiray magaaladan soo saaridda biyaha, balse magaalada ayaa dhulka hoos u sii jirta 10,000 oo mitir oo square. hagaag waa magaalo kaamil oo dhulka hoostiisa ah, dadna ay ku noolaayeen. baarayaashu waxay sheegeen in nidaamka magaaladu hagaagay 10 sano kadib markii la aasaasay, iyadoona markaa kadib dad kale u suura gashay adeegsigeeda. dadka ayaana la amakaagsan qaabka ay dadkii sameeyey magaaladan u adkeeyeen iyo qaabka ay dhismaheeda u dhisan gareeyeen, bal adiguba maleyso xilligaasi sida loo noolaa. magaalada Orvieto, Talyaaniga waxaa ku yaal magaalo lagu magacaabo Orvieto. waa magaalo mug weyn oo aad u ballaaran, haddana ku taal sadxiga dhulka hoostiisa. waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu yaabka badan ee la ogaaday intii culimadu wadeen baaritaanada ku aadan magaalooyinka ku qarsoon dhulka hoostiisa. magaalada ayaa dadkii sameeyey u adeegsan jireen inay alaabta iyo xoolahooda ku xafitaan, balse isla markaa waxay ku fikireen inay magaalo kaamila ka dhigaan, iyadoo dhexdeeda lagu arki karo warshado badan sida midda lagu sameeyo saliid saytuunka, iyo welibana waxaa ku yaal magaalada dhexdeeda qabriyadii dadkii deganaa halka. runtii waa magaalo la yaab leh oo ka mid a kuwa ka qarsoon saaxadda, balse la yaabkeeda huwan. 6. magaalada Exeter, Ingiriiska. ma ka xabsataa meelaha mugdiga ah haddana ciriiriga ah iyo buurahan iftiinka lahayn? halkan waa Exeter oo ku taalla Ingiriiska. waa waddooyin ciriiri ah oo aad u dheer, qofna keligii kuma noolaan karo, gaar ahaan dadka ka baqa oo ka cabsada meelaha mugdiga ah ama ciriiriga ah. magaaladan ayaa la ogaaday qarniga 14aad. horaantii magaalada ayaa loo adeegsan jiray si loogu soo jiido magaalada biyaha macaan, kadibna tubooyinkii meeshaasi ayaa halaabay oo eber noqday, midaasi oo sababtay in dadkii halkaa joogay ee meesha uga gambadaan hubka halista iyo rasaasta la isku garaaci jiray xilliyadii dagaalada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka,
nagu soo biir si aad uga mid noqoto asxaabta ugu horeysa ee daawata muuqaaladeena. isla sidoo kale haddii uu muuqaalku ku caajabiyey la wadaag asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan. fii amaanillah.